السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كيستا تي في iyo barnaamij kale oo gaaban barnaamijkan maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay cheegii IRS ta soo diri lahayd COVID-19 relief fund ki ahaa ama cheegii dowladda Mareykanka aan ka wada sugaynay dhamaantayo ayuu ku saabsan yahay barnaamijkan cheegaas ayaa waxa ay yiraahdeen IRS ta daraatoole ayay bilaabeen inay cheega qoraan cut gareeyaan actually cut the checks and cheegaga insha Allah ayaa bisha April 9keeda la bilaabay in la soo diro qofkii accountkiisa ay hayaana accountkay ugu soo direen and qofkii aysan hayninna waxa ay noo sameeyeen website cusub oo aan ka samaysan karno waxaa la yiraahdaa irs.gov/coronavirus website-ka linkigiisa hoos ayaan idinkaga tagayaa ama description-ka fadlan booqo description box-ka hoose si aad u gasho website-kan ayaa waxa uu ku sahlayaa in aad account information-kaaga IRS-ta aad siiso markaad gasho hoos ayaa u soconaysaa dhaxbartankiisa markaad joogto ayaa waxaad arkaysaa non-filers ama dadka sida odayaasha oo kale waayeelada ah oo SSI-da qaata oo aan canshuurta xareynin iyo dadka aan information-kooda IRS-ta aysan u haysanin banki ahaan oo direct deposit aan cheegooda u helin dadka iyaga ah ayaa waxa ay sheegeen in iyaga loo soo diri doono check laakiin chance-ka hadda aad haysato ayaa wuxuu yahay in aad u submit garayso information-kaaga haddii aad taabato non-filers wuxuu ku geynayaa third party website ama website kale website-kaas ayaa waxaa gelinaysaa magacaaga waxyaabaha uu kaaga baahan yahay waxaa ka mid ah state ID ama driver license number social security-gaaga social security-ga xaaskaaga hadday isku qoran tihiin isku buuxsateen wuxuu kaaga baahan yahay dhalashadaada inaad caddayso inaad account yar ka samaysato u baahan yahay website-ka markaad gasho and waxaad u baahan tahay intaa markaad samayso also every child information-kiisu kaaga baahan yahay in aad ku darto cunug kasto sida dhalashadiisa magaciisa oo saddexan social security numberkiisa ama social security numberkeeda aan iraahdaa hadday gabar tahay caruurta oo dhan information-kooda website-kaas ayaa gelinaysaa waa very easy to follow inaad raacdo waxaad markaa gasho waxay ku siinayaan instructions ama waxay ku siinayaan tab aad raacdo hoggaan iyagaa ku siinaayo guide garaynayo iyagaa raacaysaa all you have to do is just fill out this information marka information ka buuxiso waa submit garaynaysaa IRS-ta ayay u gudbaysaa information-kaagii oo cad account yar ka samaysanaysaa email iyo waxaa ku login information ayaa ku samaysanaysaa and also markaad samaysato intaas oo information ah website-ka aad gasho oo howlahaas aad dhamaysato waxaad helaysaa oo kale in ay leeyihiin status update oo ay sameeyeen website-ka IRS-ta marka loo gudbiyo waxay ku siinayaan status update oo where's my check ah isagana oo kale ka shaqaynayaan hadeer oo inta uu soo maraayo in la soo diray inaan la soo dirin update check ayaa iyagana samaynayaan IRS-ta website-ka irs.gov/coronavirus ayaa ka helaysaa waan idinla wadaagayaa linkiga information-kan uu ku jiro marka intaas aad samayso waxaa hadda ay qorayaan website-yada badankood Washington Post, New York Times, CNBC and ABC all this Yahoo waxay qorayaan cheegaga in ay bilowdeen in la soo diro shalay ama darad 9ka bisha bay bilaabanayaan up to 50 million Americans ba ay helaya cheega dadkaas hore oo ay leeyihiin cheega way helayaan dadkaas hore waa dadka information-kooda ay IRS-ta hayso dadka loo soo diraayo it could take weeks couple weeks ay qaadan kartaa in la soo diro cheegagaas laakiin si aad uga hortagto website-kan aan kuu sheegaya galaysaa non-filer baa taabanaysaa and follow the instructions-ka meesha ku yaallo cheegaaga
halkaas ayaad maaragtay haddaad informationka degdeg u siiso intaan lagu soo dirin IRS-ta way kuu soo diraysaa informationkaaga bangigaagana way haysanaysaa sidaan idin sheegay haddaan idinku soo celiyo magacaaga social security-gaaga dhalashadaada adresskaaga iyo banking informationkaaga sida routing numberka iyo account numberkaagay kaaga baahan yihiin intaa markaad dhammaystirto oo aad buuxiso ayaa waxaad website-ka submit garaynaysaa markaad submit garayso sidaan idin sheegay oo kale carruurta iyo hooyooyinkana waa sidoo kale u buuxinaysaa intaa markaad samayso ayagaa ka warsugaysaa insha allah jeegaga waa bilowdeen waxay yidhaahdeen dependent on the banks bangiyaday ku xiran tahay say lacagta available oga dhigaan laakiin 9 bisha oo daraad ahayd ayay bilaabeen inay jeegaga soo diraan dadkii ugu horreeyey oo loo soo diro up to 50 million Americans loo soo diray accountnada waxaa la rajaynayaa insha allahu tacaala by the 14th 14 bishan jeegaga in ay diyaar noqdaan jeegaga oo dhan inay diyaar noqdaan 14ka dadka hore oo loo soo diray weeye kuwa kalena waa loo soo dirayaa insha allahu tacaala videoga xiga waxaan kaga hadlayaa hadduu ilaahay idmo unemploymentigii for self employed sida Uber drivers iyo Lyft drivers ka gig workers dadka la dhihi jiray iyo self employed dad taksiilayaasha ahaa iyagana jeegagoodii meesha uu ku dambeeyo gaar ahaan state by state oo kala qaadayna insha allahu tacaala stateka Colorado usoo hormarin doona oo dad badan ay kaga xiran yihiin channelka waan idin salaamahayaa don't forget to like subscribe and share the video haddii aad ka heshay ama aad danaynayso macluumaadka noocan oo kale ah inaan idiin soo gudbiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh